السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر وذا برنامج جارة وأن كذي معنا يا استوديو تلفزيون كقرن الصومالية وكل يوم مقالة كابتن بس تطبيقات كان جوجا وشو قبل كأستن كان مقالة بورتالي ثبت معه كسر بقولنا تطبيقات كان بورتالي ثبت gabar South Africana oo baratay luqadda Soomaaliga isla markaana carruur badan oo Soomaali ah macallin u ah bartana luqadaha Soomaaliga Afrikaaniska Ingiriiska kana caawisa homework iyo arrimo la mid ah sidoo kale la shaqeysa jaaliyadda Soomaalida ee gobolkan Eastern Cape kana caawisa arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhanka isbitaalada sharciyada iyo waxyaabaha la midka ah hadaba isla waxaan ku booqanay guriga ay degan tahay iyo waliba madrasada ay ku dhigto oo lagu magacaabo Sabriin daawasho wacan barnaamijkeena sidoo dhacay كدر ما هايا كدو فوايه شقيسو ما شاء الله كله فوايا خلت واي فيري ينعم توجد مرتين ترتيب كوكوريا ayo kita itu semua lain free ayo You're making noise. free حاول تمسك الكرة said led ayo bed bed af Somali شيء bed sarir ya sarir سرير. سرير bed وحن واي آخر said af Somali شيء واحنا حسن واي أما واحد ولا رحنا. ما قيسا كات af Somali شيء كات بالسطوة. شقيا نور واي مات ومحاول دريم واي. روج واي أما روجا. أيه أيه واحد دوران واي. لا عرفت يا bed ترتيب قرية عادي الصومالي قاعد just talk like that. أي آخر bed cat net fet led أيه pet أيه net أيه let أيه set أيه إلى صد النشاط أما صد النشاط ماها وكدر راي حال كدر إبر بوين شن وحال إبر شن لبا كدر إبر بوين شن ولبا إبر شن waxaan ku guda jirnaa barnaamijka waxbarashada aan ku eegaynay oo aan ku soo booqanay madrasada Sabrina oo ay macluumaad ka tahay Idil oo garabkeena fadhisa Idil ku soo dhaw telefishinka qaranka Soomaaliya. Okay Idil waxa tahay gabar South Africana oo Islaam ah oo baratay luqadda Soomaaliga dabcan luqadda Soomaaliga aad bay u adag tahay barashadeeda adiga sidee kugu soo gashay inaad luqadda Soomaaliga barato wadaadkayga way baratay
iyo ciyaalka ka madrasada waa tahay idin marka meeqa sano ay ku sanadeed markaa baranaysay 10 sano 10 sano ayaa okay waa tahay carruur badan oo Soomaali ah ayaa wax barta inta badan waxay soo jiraan gabdho iyo wiilal aad u yar oo luqadda Soomaaliga dhammaan ku hadla see ku soo gashay inaad maaragtaa carruurtaan aad barto xisaabtan bara English bara Afrikaans bara iyo Quraanka okay ayagu marka sidee ku fahmaan ciyaalka oo maaragtaa xiriirka ku barayso kale sidee isku fahantaan si yani isku fahantaan bise waxay ku qaadanaysaa in maaragtaa waxyaabo badan tilmaana oo bahataan aniga Soomaali waan garanayaa iyaga waa Soomaali ما شاء الله وهول أدولسن marka laga soo tago carruurta wax barto maxaa kale waxa maqlay in hawlo kale aad u qabato community Soomaaliyeed halkan degan isla markaana ka caawiso runtii ayaguna aad ugu faraxsan yihiin maxaa kamid ah hawlahaas waxaan ka caawiyaa hospitaalka ama fairska iyo iskuulka xilliyeed kulanada leeyihiin mise u baahan yihiin oo kale ayaad ka turjuntaa okay muuqaalkaaga marka aad fadhiso waxaa qofku daawanaya xitaa wuxuu moodaya inaad tahay gabar Soomaaliyeed sababta Soomaaliga u qadaysa markii wadooda wax maaragta oo leeyahay kara waan degmanan waa qof kale ama wajnibi ama maaragta dal kale ka soo jeedaa jirto dabcan dadka daawanaya wax laga yaabaa isweydiiyaan maxaa cadeynaya gabadhan inay soo Afrikaan tahay oo Soomaaliga bartay maxaa deynay okay waxyarsukiya hay مريم فتنا سيجو ما من عرض براتني لا دي منسيو كن موي ورني فتنا سيجو ما ما أسكير إنيو با ما أسا سوماليا لا جو با سنا ما سنة مس مهد إن فتش يونا ما مس مريم مريم في مريم مهد فارح إن فتجو ما سنا إذل في إذل فارح أوكي نصرة وأنت جاي تجي أخي عود بسكن تجي الجمعة سنة إذل في فارح إنيو با مهد فارح فتجو با سنة سيجو با سومالي إنيو ما كليرا ما كلير لن انت تجي سوماليا تجي السومالية وتهاي طبعا الحملة أفريكانس هي قوة شنو الغدة أو سن أفريكان لكن سومالي بالقوة هذا المكان مقعد مريم وهذا مقعد إذل عبا مقعيس مهد ما يخص نجرتان بكري سكارة سكال سكال ميا ما شاء الله نظرة وهذا مقعد إذل يدير ميا عبا مهد ولا الكاغا نعيم ولا شيء مريم waa tahay daawadayaal markana waxaan joognaa qaybtii labaad barnaamijka oo ku soo booqanay guriga macallimad idal marka waxaanu dabcan la sheekaysan doonaa qaar kamid ah gabdhaha idil iyo ayada qudheeda oo dabcan haddana ilaa la fadhisa idil mar kale welcome barnaamijka soo dhawo okay waxay ii sheegtaa idil qaabka aad ku baratay quraanka kariimka iyo cidda ku bartay iyo sidoo kale cidda ku fududeysay in af Soomaaliga okay ninkayga ayaa i baray quraanka ninkayga ayaa ii bilaaway luqadda Soomaaliga waxa ii dhamaystiray dariska iyo ciyaalka iskuulka wata ma sha Allah waa arrin aad u fiican mid labaad ku weydiina waxay tahay idil balina noo sharaxdo waxyaabaha muddo badan ee Soomaaliga kusoo dhex jirtay oo wax baraysay oo la shaqeysay qaar kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ku nool waxaad noo sheegtaa waxyaabihii kugu cajiibka badnaa iyo waxyaabihii maaragtaa oo aad ula yaabtay oo aad kala kulantay Soomaaliga iyo ugu fiicnaaba waan ka helay qaab nololeedkooda dhaqankooda diinkooda xishoodkooda
shaqo jecelkooda iyo xaaraan ma jeclo xaaraanta ma jecla haa waa tahay intaas intii ugu wanaagsaneed oo ka aragtay waay maxaa kugu cajiib ku badnaa oo aad kala kulanta ama aad la yaabtay markaa aragto aad tiri waxaan cajiib waay noo sheegi kartaa okay qabiil jacayl wada jir ma lahan naagaha South Africaanka markay guursadaan diinta iyo dhaqanka Soomaalida si fiican uma baran hijaab weyn ayay u geliyaan waa tahay aad u maasan tahay markan waxaa jirta habeen dhaxas mar aan sheekeysanayna intaan markii ii sheegay sheekadaada hadal aan mar igu dhahday oo ahaa jaceylka Soomaalida iyo jaceylka South Africaanka same maahan ama sinna dabcan hadalkaas wuxuu mid aad u cajiib badan maxaa macnaha ula jeeday oo qaab noocee ayaysan same ku ahayn ma noo sharaxi kartaa taas jaceylka Soomaalida waa kharish xagga jabka jaceylka oo South Africaanka waa wiligiis ma dhamaado lamaanahaas jecel oo kale wuxuu ku xisaabtamaan qarashka jeebkooda ku jira ee dhaqaalaha ay leeyihiin laakiin South Africaanka waxyaabahaas kuma xisaabtamaan saas ma ula jeedaa haa waa sidaas okay aad u maasan tahay ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysa ku weydiinayo waxay tahay inta badan waxaa la sheegaa South Africaanka Soomaalida ku nool oo kale meelaha ganacsiga kule in la dilo in la dhaco waxyaabaha la midka waxaa la South Africaanka u geystay South Africaanka dilay South Africaanka boobay dabcan adiga South Africaana tahay hadana Soomaaliga bartay Soomaaliya ku dhex nooshahay waliba ayaga wax bartaa wada la shaqeysa waa caawisaa xitaa caruurtoodii ayaa wax bartaa marka arrimahaas maqasho oo dabcan way ku soo gaarayaan ama wararka waa daawata inta badan sidee u dareentaa maxaase markaasi dareentaa aad maqasho waxyaabaha eray la mid ah wiil Soomaaliya la dilay ama dad Soomaaliya la soo boobo kale ama dhibaato la soo gaarsiiyo kale ama la gubay xitaa maxaa dareentaa aad ayaan uga xanuunsadaa markii walaalahay muslimka Soomaalida ahaa wax la yeelo aniga iskuma maleeyo South African Soomaali anay ciyaalkayga waa Soomaali wadaadkayga waa Soomaali sodadeedii waa Soomaali waaye ma sha Allah okay idil aad baad u maasan tahay waan kaaga mahad celinaa programka aad nasiisay TV qaranka isla markaana naga ogolaatay aad baan kaaga mahad celinaa runtii waan kaaga mahad celinaa sidoo kale shaqada wacan ay aad hayso iyo sidoo kale af Soomaali u baratay sidoo kale noogula sheekaysay waxaan ku leenahay runtii aad baad u maasan tahay kale waa tahay daawadayaal sida daawanayseen baa markan waxaan kasoo nomaanay idil sidoo kale waxay la fadhisaa Asli oo ayaduna ah gabar ay dhashay idil oo isla markaana Soomaaliga ayadu ku hadasha waxaan filayaa Asli sidoo kale aysan Soomaali ahayn laakiin luqadda ay baratay oo ay ku dhex nooshahay isla markaana ay ku hadasho ana filayo in idinka badan doonto af Soomaaliga ku dheera Asli kusoo dhawow telefishinka qaranka waan dhawahay waa tahay waa maasan tahay idil adig Soomaali kama South African Soomaali aan ahay Soomaali okay laakiin Soomaaliga waxaan filayaa inta ku baratay haa okay waa tahay iskuulka dhigtaa markii iskuul ma dhigin okay iskuul ma dhigtay okay luqadda Soomaaliga inaad bartay oo ku fududay aabahay ilaa intee baranaysa marka Soomaaliga ilaa intaan dhashay okay waa tahay Soomaaliga waa badan yahay dabcan waxaa laga yaabaa inuu barashadeeda waqti ku qaatay markaa baranaysa adeeg miyo ama fudeed fudeed waaye fudeed waa tahay iskuul maad u tagtay haa okay waa tahay waxa kugu cajiibka badnaa inta Soomaaliga aad baranaysa maxay ahayd dhaqanka Soomaalida waa tahay daawadayaal weli programka aan bartanka ku jirnaa markana waxay la fadhiyaa Suleymaan Macalin Xuseen oo kamid ah ragga u oleeya Soomaalida ku nool magaalada Port Elizabeth gobolka Eastern Cape Suleymaan sidoo kale waxaan wax ka weydiino qaabka u arkaan idil shaqada hayso iyo waxyaabaha bulshada u qabato iyo wada shaqeynta maaragta waxyaabaha faa'iido u bulshada ugu jirto Suleymaan nagu waran arrimahaas oo dhan shaqooyinka ay la qabato kale idil iyo waxyaabahaas bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waad mahadsantahay qorshe waxaan aad u salaamayaa macnaha adiga nafsadaada iyo wariyaasha TV-ga qaranka xaqiiqdana waxaan dhihi karaa hawsha aad haysaan mise hadda aad qabateen hawl aad loogu baahnaa waay haddaan usoo noqdo midda idil
xaqiiqdii gabadhan idil ah shaqada ay macnaha Soomaali Eastern Cape ka hayso macnaha cid 10 qof ay qaban karto ma shaqada hayso shaqo aad u weyn bay haysaa onan jeclaan lahaa maanta macnaha in loo bandhigo arrimahan oo kale dawladda Soomaaliya sababtoo ah gabadhan inaad shalay wax tagtay macnaha iskuulka ay wax ardayda ku barto ilaa arday kontomee gaaraysa wax bartaa af Soomaaliga ay u akhrisaa Englishkii bay u akhrisaa ilaa Corona Afrikaanskii bay bartaa waxa inta u sii dheer macnaha shaqada ay qabato xaqiiqdii gabadhan ayada ah community Soomaalida inay shaqaysaa anaga anytime aan u baahno waan u yeeranaa way nala qabataa hawlaha waxa kamid ah macnaha isbitaalada kale dumarka Soomaalida wad la socotaa dib aad ku qabaan macnaha dhalmada iyo xaq sida loo treat gareebo marka si fiirido dib weyn bay ku qabaan ayadan u yeeranaa hoosh u weyn ee hadda xushmad aan dawladda hoose ka haasano waa ayada wajigeedii madaxeeda xaqiiqdii marka idil hawsha ay hayso ma dhihi karo waa hawl yar waa hawl aad u sharafeen wali biladba inay ku meedsato iyo xaq u leedahay watahay ilaa inta lag ay wada shaqeynayeen oo idil ay Soomaaliya ku hadlaysaa wadashada dareemaysa waa qof Soomaaliga si fiican u hadlay dadka isfahmayaan ilaa inta lag ay wada shaqeynayeen muddo ayaan wada shaqeynaynaa ilaa hadda 7 sano waan wada shaqeynaa idil 7 sano waxaan u wada shaqeynaa si daacadnimo ee ka Soomaalinimo ee ka community-nimo ku shaqeynaa waxyaalaha u baahan oo dhan u tirsanaa sida hadda home affairs kale iyada nooga shaqeysaa markii dadka verification-ka iyo sharciyada lagu soo celiyo ayadan u tirnaa luqadii bay kula hadashaa tii Hausa ay kula hadashaa localkii kula hadashaa Afrikaanska ay kula hadashaa Englishka kula hadashaa waa gabar macnaha wadankii u dhalatay oo South African ah laakiin si haddana aan South African ka tirsaneyn oo Soomaali ka tirsan dadkii ummadda Soomaaliyeed ku dhex nooshahay Soomaalida waxa 24 ay caawisa ciyaalka Soomaalida ay wax bartaa marka adigu ilaa 7 sano wada shaqeynaynay shaqadana wadnana waa untu Soomaaliyeed ee community-ga fi sabilillah aan u sameeynaa waxa taa lacag ay ku qaadato maaha وتوارد ولا سرنتي القف أمارك تدلك عد تمد إن ودشي أو الصومالي برتي وهذا هو بدن كساعد عادي وأنا أقول إن بتوين بين الصومال دخلوا جيستو بالكور دريك بلوش هذا مركب قيمة سوكله سيدو أركان يو مارك تنسيدي ولا شقيان سيدو سودوين يعني سيدو فرح سيوا ها waxay u arkaan waa arin macnaha mucjiso ilaahay cirka ka soo tuuray hada xaqiiqdii macnaha hadal haynteeda gobolkan Eastern Cape kali lagu ma hadalaayo idil khawtin hada tagtid ama captain oo kale hada tagtid waad maqlaysaa gabadha idil ahayd macnaha Soomaalida caan bay ka tahay gobolkan sababtoo ah macnaha shaqada ay hayso iyo wanaaga ay Soomaalida u haysaa yeelay marka waa gabar caan ah oo Soomaalida macnaha Soomaalida isu keentay central xudunta Soomaalida weey marka waxaan ka codsan lahaa macnaha maanta maadaama aan fursad ku helnay telefishinka qaranka ah inaan macnaha aan arinteeda la soo bandhigo inay caalamkana Soomaali meel alla meesha adduunka ka joogan ogaadaan sidoo kale dawladda Soomaaliya ay ogaato gabadhan macnaha ummadda Soomaalida waxay u hayso ayaan macnaha halka ka cadeynaa insha Allah in aad baad u mahadsantahay Saleeman waad mahadsantahay mudane assalaamu calaykum inta ayaan ku soo gabagabayn doonaa daawadayaal barnaamijka toddobaadkan waxaan idin tabinayaan anigoo Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe dhanka farsamaduna wuxuu ahaa iyo kaamirada saaxiibkay Henry inta barnaamij kan la mid ah kulmi doono oo qorsho idinkaga tagaya sida ay nabadgelyo